بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال odhanaysa haddii laga arko bisha beledka kale ka fog ma laazim bay ku tahay inay beledka laga arkay ku raacaan arrinta noocaasiya waxaynu kaga jawaabaynaa haddii labada beled isku dhow yihiin isku dhowaanta maxaa loo tixgelinayaa ahlulcilmigu haba ku kala duwanaadeen laakiin ay ugu mudan tahay biikhtilaafi almataalic in cadceeddu mar u soo wada baxdo marna u wada dhacdo ta noocaasiya hadday ku kala gedisnaadaan ma israacayaan mise isma raacayaan waa masale ijtihaadiya waxaanay ku xidhan tahay oo arrintaasi u khaadicaysaa ayna tahay culimmada beledka in looga dambeeyo layskana ilaaliyo beled qura inuu laba jeer kala soomaan ta noocaasi yahay arrin habboon maaha laakiin culimmada beledkaasi waa in looga dambeeyaa hadday yidhaahdaan waa lala soomayaa waana lala aafurayaana tixgelinteeda ayay leedahay hadday yidhaahdaan lala soomi maayana tixgelinteeda ayay leedahay muslimiintuna ma dhicin hal mar inay wada soomeen wadana aafureen weligoodba waa ku kala gedisnaayeen sida waxa weeye ay markaa dee salaadaaba wakhtiyadooda ugu kala duwan yihiin oo beledba salaadu mar u soo gelayso duruqda bishu ku sugnaatana ahlulcilmiga qaarkood ilaa 9 bay gaadhsiiyeen laakiin 2 dariiq baa ugu mudan labadaa dariiq oo ah in bishii la arko oo ay dee marag iyo caddayn ku sugnaato bishii la arko suumuu liru'yatihi wa afdiruu liru'yatihi aragtina ku sooma aragtina ku aafuro fa in qumma calaykum fakmiluu ciddata shacbaan 30 haddii waxa weeyaan bishii la qariyo ay muuqan weydana in shacbaan 30keeda la dhammaystiro labadaa dariiq baa ugu mudan aragtida la sheegayana waa aragtida caadi markaa indhaha loogu arkayo ee mid lagu riyoonayo maaha bal ahlulcilmigu ijmaac waxay ku soo naqliyeen haddii shakhsi yidhaahdo nebiga sala allahu calayhi wasalam baan ku riyooday marka wuxuu igu yidhi bishu waxay noqonaysaa biri qowlkiisa inaan la ictimaadayn oo qof hurda oo siduu wax u dabdinayo siduu u koobayaba arrinkiisa aan la fahmayn inaan la qaadanin biijmaaci ahlilcilm dhammaan sida culimmadu isla ogol yihiin haddii beledka fog beledkan dhowee laga arkay ay waajib ku noqonayso inuu raaco labadaa beledee kala fog inay israacaan ay waajib noqonaysana sida ahlulcilmiga qaarkood tilmaameen sebenkii maalan cumar ibnu khadaab oo kale radia allahu tacaala canhu caalamka islaamku waa ballaadhay oo dhulalkiisu aad bay u ballaadheen waxyaabo aan hore u jirinna cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu muslimiinta waa u jideeyey hadday tani diin tahay beledkao dhan caalamkao dhan in hal mar laga wada soomana waa u jidayn lahaa waxyaabuhu jideeyey waxaa ka mid ahaa taariikhdan hijriyada ee aynu adeegsanaynaan hore u jirin waa wakhtigii cumar ibnu khadaab radia allahu tacaala canhu waxaa ka mid ahayd masalan jeelasha waxa la yidhaahdo waxaa ka mid ahayd inuu ummadda isugu geeyey ramadaanta hal qaari ama hal imaam inuu tujiyo waxyaabaha iyo waxyaabo badan oo la mida oo dawaawiinta masalan la gelinayo diiwaangelinta ciidamada iyo wixii la mida la gelinayo ay ka mid ahayd waxyaabaha uu jidaynayey bisha in hal mar la wada soomaa hadday waajib tahay wuu caddayn lahaa wakhtigaana waa jidayn lahaa salafu haadihi ummana waa jidayn lahaayeen weligeed baa la kala soomayey laakiin muhiimaddu waxay tahay inaan beled qura 2 jeer kala soomin ee beledka kaa durugsan xagga cadceed soo baxaya dhicista masalan iminka innaga oo kale maka iyo sacuudiga in badanoo ka mid a dee isku marna waynoo soo baxdaa marna waynaga dhacdaa marka loo eego koonfur iyo waqooyi wixii naga xigay saa inoogu toosan intay doonaanba ha jireene
inta badan qaalibka qoraxdu mar bay usoo wada baxaysaa marna way wada dhacaysa wixiise galbeedkaa xiga ama bari kaa xiga waxaa laga yaabaa adna inaad habeen ku jirto iyaguna waa beriba ku jiraan maadaama ay sidaa taho laga yaabo saacaad dhan 7 saac intan wax fara badan dee inaa kala horeysaan in la yidhaahdo ilowba ilow isku mid bay noqonayaan oo muslimiinta la midaynaya muslimiinta waxaa lagu mideeyaa cala alkitaabi wasunna wa calaa fahmi salafi saalix in lagu mideeyo dariiq toosan inay ku midoobaan laakiin bil kuma midoobayaan bishu inay inaga qarsoontaana ma suuragalaha caalamkao dhan inay ka qarsoonaato marka haddii ay jid tahay in hal mar la wada soomo waxaa la odhan lahaa caalamkao dhan dee ha laga soo horkalaabto wax suuragalana may noqoteen in meelun laga arkaa baa suurageli kartaa marka waxaan leenahay arrintaa waxaa looga dambaynayaa culimada beledka ayaa looga dambaynayaa sida ijtihaadkooda ay ku dareeriyaan ayaana lagu socon wallahu subxaanahu wa tacaala aclam